daawadayaal barnaamijkan waxaan ku eegaynaa afarta mashruuc ee waraabka ee Baka Goomar Wichwachi iyo Maraacato oo ah yoolasha horumarka waara ee afka qalaad loogu yaqaano Sustainable Development Goals ama SDG-ga. mashaariicahan oo sanad laga joogo markii la dhagax dhigay ayaa dhammaantood xadhiga laga jaray isla markaana waqti xaadirkan bixinaya adeegii loogu talagalay. aan ku horeynay mashruuca waraabka ee Baka ayaa waxaa la dhagax dhigay horaantii bishii January 2016 dhismihiisana waxaa fulisay wakaaladda jidadka ee dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya. mashruucan ayaa waxa uu leeyahay 4 boondi oo midkiiba uu qaadi karo 270,000 oo mitir kiyub oo biyo ah, waxaana looga faa'iideysanayaa dhul beereed 6,000 oo hektaar iyadoo miisaaniyadda ku baxday ay tahay 191 milyan oo bir. mashruucan ayaa waxa uu main kanaalka biyaha u qaada boondiyada uu dhererkiisu dhan yahay 17.6 kilomitir halka secondary kanaaladiisuna ay yihiin 9. qaybta maamulka biyaha ama headwork-ga ee mashruucan ayaa waxa uu joogiisu u dhan yahay 4 mitir halka uu hoos u qodan yahay 6 mitir. boondiyada mashruucan ayaa ballac iyo dhererba ah 300 mitir iyagoo hoos u qodan 4 mitir. waxaana si rasmi ah xadhiga looga jaray taariikhdu markii ahayd 22 bisha 8 ee 2009 isagoo waqti xaadirkana bixinaya adeegii loogu talagalay. mashruuca waraabka ee Goomar oo la dhagax dhigay horaantii bishii January ee sanadii 2016 ayaa waxaa dhismihiisa fulisay wakaaladda dhismaha iibka iyo adeegga gaarka ah ee booliska dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya. mashruucan waxa uu leeyahay 4 boondi oo midkiiba uu qaadayo 270,000 oo mitir kiyub isla markaana waxa ay boondiyada mashruucan ay sugeynay qaban karaan 1,080,000 oo mitir kiyub oo biyo ah, waxaana looga faa'iideysanayaa dhul beereed 6,000 oo hektaar iyadoo miisaaniyadda ku baxday ay dhan tahay 192 milyan oo bir. waxaana mashruucan uu qaban karaa biyo dhan 1,080,000 oo mitir kiyub. mashruucan Goomar ayaa waxa uu main kanaalkiisu uu dhererkiisu dhan yahay 24 kilomitir halka secondary kanaaladiisuna ay yihiin 12. qaybta maamulka biyaha ama headwork-ga ee mashruucan ayaa waxa uu joogiisu u dhan yahay 4 mitir halka uu hoos u qodan yahay 6 mitir. boondiyada mashruucan ayaa ballac iyo dhererba ah 300 mitir iyagoo hoos u qodan 4 mitir. waxaa si rasmi ah xadhiga looga jaray 22 bisha 8 ee 2009 tirsi taariikheedka dalkeena isagoo waqti xaadirkana si toos u bixinaya adeegii loogu talagalay.
mashruuca waraabka ee Wajiwaji ayaa waxa la dhagax dhigay horaantii bishii January 2016 dhismihiisana waxaa fuliyay xafiiska waraabka iyo dooxooyinka dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya. mashruucani waxa uu leeyahay 5 boond oo midkiiba uu qaadi karo biyo dhan 270,000 oo mitir kuyubo waxaana looga faa'iideysanayaa dhul beereed dhan 6,000 oo hektar. waxa uu mashruucani uu isu geyn qaban karaa biyo dhan 1,350,000 oo mitir kuyubo. mashruucan waraabka ee Wajiwaji ayaa waxa uu leeyahay main kanaal dhererkiisu dhan yahay 19 kilomitir halka secondary kanaaladiisuna ay yihiin 12. qaybta maamulka biyaha ama headwork-ga ee mashruucan ayaa waxa uu joogiisu u dhan yahay 4 mitir halka uu hoos u qodan yahay 6 mitir. boondiyada mashruucan ayaa ballac iyo dhererba 300 mitir iyagoo hoos u qodan 4 mitir. waxaana mashruuca waraabka ee Wajiwaji oo miisaaniyadda ku baxday dhan tahay 188 milyan oo bir si rasmi xadhiga looga jaray 22 bisha 8 ee 2009 tirsi taariikheedka dalkeena waqti xaadirkana sidii loogu talagalay u bixinaya adeegii loogu talagalay. mashruuca waraabka ee Maraacato oo kamid ah isna mashaariicaha SDG-ga ayaa waxa la dhagax dhigay horaantii bishii January ee sanadii 2016. mashruucan oo dhismihiisa ay fulisay wakaaladda dhismaha hawlaha biyaha ee dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa waxa uu leeyahay 4 boond oo midkiiba uu qaadi karo 270,000 oo mitir kuyub oo looga faa'iideysanayo dhul beereed dhan 9,000 oo hektar. waxaa mashruucani uu qaban karaa biyo dhan 1,080,000 oo mitir kuyub. mashruuca waraabka ee Maraacato ayaa waxa uu main kanaalkiisu dhererkiisu dhan yahay 18 kilomitir halka secondary kanaaladiisuna ay yihiin 6. qaybta maamulka biyaha ama headwork-ga ee mashruucan ayaa waxa uu joogiisu u dhan yahay 4 mitir halka uu hoos u qodan yahay 6 mitir. boondiyada mashruucan ayaa ballac iyo dhererba 300 mitir iyagoo hoos u qodan 4 mitir. mashruuca waraabka ee Maraacato oo ay ku baxday miisaaniyad lacageed oo dhan 160 milyan oo bir ayaa waxaa si rasmi xadhiga looga jaray 23 bisha 8 ee 2009 waxaana waqti xaadirkan uu si toos ah u bixinaya adeegii loogu talagalay. mashaariicahan afarta ee waraabka ayaa waxay isu geynay leeyihiin 18 boond oo qaban kara 4,860,000 oo mitir kuyubo isla markaana waraabin kara dhul beereed gaadhaya 27,000 oo hektar. iyadoo miisaaniyadda ku baxday ay tahay adduun lacageed oo ka badan 732 milyan oo bir. mashaariicahan ayaa waxay xukuumaddu ugu tala gashay in looga faa'iideeyo 100,000 oo shacabka deegaanka isla markaana kamid ah qorshayaasha la doonayo in lagaga qalin jabiyo saboolnimada oo cadow guun ah oo ragaadiyay u ah bulshada deegaanka oo horay u ahayd kuwa geediga noloshooda ku saleeyay nidaamka xoolo dhaqatada ah ee loo marayay hababkii qadiimiga ahaa.